Dowladda Umayyadeenta waa dowladdii xukunka Islaamka la wareegtay kadib hogaamintii afarta khulafaa ur-raashidiin. Markuu geeriyooday Nabigu sallallahu alayhi wasallam, waxaa xukunka iskaga dambeeyey Abubakar, Cumar, Cismaan iyo Cali bin Abi Taalib. Kadib Cali bin Abi Taalib oo ahaa khaliifkii u dambeeyey, waxaa hoggaanka muslimiinta la wareegay Mucaawiya bin Abi Sufyaan oo ahaa aasaasihii iyo hogaamiyihii dowladda Umayyadeenta. Laakiin Mucaawiya sida uu ku noqday hogaamiyaha muslimiinta waa qiso u baahan inaan dul istaagno. In yaraan dib u laabanno si aan taariikhdan halkani aynu si fiican ugu fahanno. Halkanna waxaa ku jira qiso ka mid a qisooyinkii ugu xanuunka badnaa ama dhacdooyinkii ugu murugada badnaa taariikhda muslimiinta. Khaliifkii saddexaad ee muslimiinta oo ahaa Cismaan bin Cafaan, intii uu hoggaanka muslimiinta hayay, waxaa jiray dad muslimiinta ka mid a oo markaasi ku eedeyn jiray inuu xukunka iyo boosaska waaweyn u dhiibo qoyskiisa reer Banu Umayya. Arrinkaasi waxaa ka dhashay in muslimiintii waqtigaasi qaar ka mid a oo ka kala yimi wadamada Masar iyo Ciraaq ay amiirkii Cismaan bin Cafaan weerar ku soo qaadaan. Waxaa lagu soo weeraray gurigiisa oo ku yaalay magaalada Madiina. Ugu dambeyn, dadkii muslimiinta ahaa ee ka soo horjeeday Cismaan xukunkiisa waxay ugu galeen gurigiisa, sidaasi ayayna uga takhaluseen oo ku dileen. Markan taariikhdu waa 656 taariikhda miilaadiga ah. Sidaasi waxaa xukunkii Islaamka ku qabtay khaliifkii afraad oo ahaa Cali ibnu Abi Taalib, laakiin isla markiiba kacdoon ayaa uu la kulmay Cali. Cali waxaa ku kacay oo diiday inuu aqoonsado ninkii ugu sarreeyay dalka Syria, waa guddoomiyaha dalka Syria, Mucaawiya bin Abi Sufyaan, oo hayb ahaan ay isxigaan Cismaan bin Cafaan, waxayna isku yihiin qoyska reer Banu Umayya. Mucaawiya wuxuu Cali ku xujeeyey in dadkii Cismaan bin Cafaan dilay lagu duulo aadna loo ciqaabo, wuxuuna istaagay ilaa aad keentid dadkii dilay Cismaan bin Cafaan. Kuma ictiraafayo amiirka muslimiinta inaad tahay. Cali iyo Mucaawiya khilaafkoodii dagaal buu noqday. Isqabadkoodiina wuxuu gaadhay in Cali ciidan usoo hogaamiyo dhinacii uu ka talinayay Mucaawiya oo ahaa dalka Syria. Ciidankii Mucaawiyana dagaal buu kala horyimay, waxaana la isku helay deegaan ku yaala dalka Syria oo la dhaho Sifiin. Waa meesha uu ka dhacay dagaalka Sifiin. Dagaalkaasi dhowr maalmood ayuu socday, laakiin lama kala adkaan heshiis dhexdhexaadin ah ayaa lagu soo afjaray dagaalkii. Sida taariikhyahanadu qoreen, dagaalkaasi waxaa gacanta sare lahaa oo markaa inuu guulaysto ku dhowaa ciidankii Cali ibn Abi Taalib, laakiin ciidankii Mucaawiya ayaa dalbaday in dagaalka la joojiyo. Markii uu Cali ogolaaday in dagaalka la joojiyo, maadaama uu laba gruub oo muslimiina dagaalkan u dhexeeyo, sidaasina uu dagaal fitna ah ku yahay, waxaa go-aankii Cali ka xanaaqay qaar badan oo ka mid a ciidankiisii oo ku andacooday dagaalkan waa in la sii wadaa. Qaar kale oo isla ciidanka Cali ka mid ahna waxay ula muuqatay in Cali uu ku khaldanaa inuu heshiiskaasi nabadda la qaato Mucaawiya. Qoladani waxay ahaayeen ama waxay dhaheen laa xukma ila Allah, ma jiro cid xukunka haysa ilaahay ka soko, ama ilaahay ka sokow xukun kale oo soconayay ma jiro. Waxay sidaasi ku qaadaceen amiirkii muslimiinta, ciidankii muslimiintana gooni bay uga baxeen. Waa meesha magaca khawaarij uu ka soo askumay. Magaca khawaarij waxa uu ka yimi kelmadda kharaja oo la micno baxay. Maadaama ay ciidankaasi muslimiinta sidaasi kaga baxeenna, waxa ay noqdeen khawaarij. Amiirkii muslimiinta Cali bin Abi Taalib, dagaalkii uu Mucaawiya la galay kadib, waxa uu soo wareegay dhulka maanta loo yaqaan Syria, maadaama uu taageero badan ku lahaa halkaasi. Sidaasna magaalada Kuufa ayaa ku noqotay caasimadii muslimiinta laga xukumayay intii Cali xilka hayay. Khilaafkii badnaa iyo dadkii ka soo horjeeday xukunka Cali waxay hoos u dhac ku sababeen awooddii amiirkani Cali bin Abi Taalib. Sannado kooban kadib waxaa dhacay dilkiisii. Cali waxaa dilay oo uu gacantooda ku baxay nimankii ciidankiisa hore uga tirsanaa ee khawaarijta ahaa. Kadib markii Cali bin Abi Taalib uu shahiiday, ilaahay raalliha ka noqdee, waxaa xukunka qabtay wiilkiisii Xasan
oo ku sugnaa magaalada Kuufa, laakiin halkaasi meel aan ka fogeyn oo ah isla dhulka maanta loo yaqaano Syria waxaa jooga ciidankii uu hogaaminayay Mucaawiya oo weli colaadii iyo cadhadii dilkii Cismaan binu Cafaan tabanaya maadaama ay isku reer ahaayeen. Iyadoo laga baqayo in dagaal labaad ka dhex qarxo muslimiinta, wiilkii Cali uu dhalay ee Xasan ahaa ayaa heshiis la galay Mucaawiya, wuxuuna oggolaaday in siyaasadda iyo hoggaanka muslimiinta uu ka tanaasulo. Sidaasna waxaa awooddii muslimiinta kula wareegay Mucaawiya bin Abi Sufyaan. Taariikhda miilaadiga markan waxay ku beegan tahay 661 oo hijriyaduna waa sanadkii afartanaad. Waxaa sidaasi ku asaasmay dowladdii Umayyadeed waxaana hogaamiyihii noqday Mucaawiya ibn Abi Sufyaan. Dowladdani waxay ku abtirsataa magaca reer Bani Umayya ama reer Banu Umayya oo ah qoyska ay ka soo jeedaan hogaamiyahan iyo sidoo kale khaliifkii Cusmaan binu Cafaan. Dowladdii Umayyadeed intii ay talada hayeen waxay qabteen wax aan macquul ahayn. Xukunkooda waxay gaadhsiiyeen dunida gees ilaa gees. Dhinaca bariga, dowladdan Umayyadeed waxay isku fidiyeen ilaa xadka Hindiya oo ah dhulka maanta loo yaqaano Bakistan ilaa xuduudda Chinaha. Waxay dagaalo la galeen boqortooyadii awoodda badnayd ee Chinese-ka ahayd ee Tang Dynasty iyo quwadihii kale ee bartamaha Aasiya ka jiray, iyagoo intaasi raadinaya inay saameyn ku yeeshaan dunida. Dhinaca galbeedka, waxay isku fidiyeen dhammaan wadamadii ku yaalay waqooyiga qaaradda Afrika. Waxay ka gudbeen dalka Morocco waxayna sidaasi ku galeen ama ku gaadheen Atlantic Ocean-ka ama badda Atlantic-ga. Way ka sii gudbeen waxayna usii tallaabeen dhinaca Spain iyo Portugal. Badi dhulka wadamadan Yurub ku yaala ee Spain iyo Portugal waxaa qabsaday dowladdii Umayyadeed, waxaanay halkaasi ka aasaaseen boqortooyadii magaca dheereed ee Andalus. Halkaasi kuma aysan ekaane, gudaha qaaradda Yurub ayay sii galeen waxayna isku fidiyeen iyagoo halkaasi dagaal ku sii maray ilaa iyo xadka ay gaadhaan dalka Faransiiska. Dhinaca koonfureed, waxay haysteen dhulkii Carbeed, Masar oo ah gudaha qaaradda Afrika iyo badi wadamada ku yaala waqooyiga Afrika. Waxay sameeyeen ganacsi aad u xoog badan oo ay la yeesheen galbeedka Afrika boqortooyinkii joogay ee ay ka mid ahayd boqortooyadii Wagadu ee reer Ghana. Dhinaca galbeedka Afrika, dowladdan ganacsigeedu waa u gaadhay waxyaabo badan oo xaqdarro iyo awood sheegasho ahna waa ay ka sameeyeen gudaha qaaradda Afrika, sida inay addoomo ka soo kaxaystaan galbeedka Afrika. Maadaama ay dhinac walba dunida ku faafeen ama isugu fidiyeen, dowladdani Umayyadeed waxay alaabo fudud oo ay ka mid yihiin maryo, cusbo iyo alaabo bir ka samaysan oo diyaarsan ka keeni jireen dhinaca qaaradda Yurub iyo Aasiya. Alaabtaas waxay u gudbin jireen galbeedka Afrika waxaana ay kusoo bedelan jireen dahabka, foolka maroodiga iyo dad ay addoom ahaan u soo kaxaysan jireen. Addoomahaasina si arxan darro ah ayaa loola dhaqmi jiray. Qofka carabka ah waxa uu qaadan jiray addoon lab ah ama addoon qof dumar ah, markaasina isagaa xor u ahaa sida uu ka yeelayo. Sharciga ama dowladdan Umayyadeed ee ka jirta dhulkaasina kama aysan horjeedin xaqdarradaasi lagu sameynayo addoomaha laga keenay dunida qaybaheeda kale. Laakiin dowladdan Umayyadeed ee sidan dunida ugu faaftay Islaamkana maqrib ilaa mashriq gaadhsiisay, galbeedka Afrika diinta waa ay gaadhsiiyeen laakiin ma aysan qabsan dhulkii ku yaalay galbeedka Afrika. Waxaana sabab u ahaa in boqortooyadii Ghana iyo boqortooyooyinkii kale ay ahaayeen kuwa aad u xoog badan. Dhulkaasina ma uusan ahayn mid ay si sahla ku qabsan karaan. Sidoo kale, maadaama ay waxyaabaha ay u baahan yihiin sida dahabka, foolka maroodiga iyo addoomaha ay si fudud u helayeen, ma aysan jirin wax dagaal ku qasbaya. Saa awgeed waa ay la ganacsan jireen. Dowladdan Umayyadeed waxyaabaha ugu waaweynaa ee u qabsoomay waxaa ka mid ahaa inay luqadda Carabiga ka dhigaan tan rasmiga ah ee dowladda ee dhulka ay ka taliso oo dhan wax lagu qoro, cashuurta iyo howlaha dowladdana
lagu fuliyo. Ka hor Umawiyiinta waxaa awood badan lahaa luqadaha Giriigga iyo Bershiyaanka, laakiin xukunka intii ay joogeen ayay meesha ka saareen luqadahaasi, luqadda Carabigana ka dhigeen tan awoodda koowaad ee deegaanadaasi ay ku xukumayeen. Dhinaca dhaqaalaha iyo suuqa ganacsiga aad ayay ugu fiicnayd dowladdani Umawiyiintu. Lacagtii hore ee Bershiyaanka ama Byzantine ama Ruumka ayay meesha ka saareen. Marka lacagahaasi Bershiyaanka iyo dowladdii Ruumku ay lahaayeen ayay meesha ka saareen, waxayna dhaqan geliyeen lacagtooda cusub ee diinaarka oo dahab ka samaysnayd iyo dirhamka oo sidoo kale isaguna silfar ka samaysnaa. Arrinkan ama hawshan ay lacagihii hore suuqa kaga saareen waxay ka caawisay inay dhaqaale ahaan ay xor noqdaan. Wadamadii ay ka talinayeen iyo kuwii ay xiriirka ganacsi la lahaayeenna si fudud uu ganacsigoodu ugu kala goosho. Dhinaca horumarka iyo dhismayaasha, dowladdani waxay soo bandhigtay dhismayaal cajiib ah oo ka tarjumaya aqoonta iyo xadaaradda Islaamku meesha ay joogto. Dhismayaasha ay sameeyeen waxay ahaayeen kuwo dunida ka tusaya ama muujinaya inay boqortooyadan ay la mid tahay tan Rome ee Italy iyo dowladdii Ruumka ama Byzantine-ka oo markaasi xadaarad iyo aqoon ahaan ay kuwaasi tahay mid u dhigma. Dhismayaasha dhaadheer, taalooyinka iyo jidadkii ganacsigooda fududeeyey ayaa ay dhiseen. Sidoo kale masaajidkii weynaa ee magaca Umawiyiinta qaatay oo ahaa mid noociisa aan dunida hore looga dhisan ama dunida Islaamka markii u horeysay mid sidan oo kale laga dhiso, ayaa ay ka taageen magaalada Dimashq ee dalka Syria oo ahayd xaruntii Umawiyiinta. Cisbitaal guud oo lagu daweeyo xanuunada guud ayaa ay markii ugu horeysay sidoo kale taariikhda muslimiinta sameeyeen Umawiyiintu. Dhakhtarkan wuxuu bixinayay ama cusbitaalkani wuxuu bixinayay adeeg caafimaad oo bilaa lacag ah, waxaana muhiimadda ay u sameeyeen ahayd dadka masaakiinta ah iyo dadka waayeelka ah inaanay wadooyinka ka tugsan ee ay adeeg caafimaad oo bilaash ah sidaasi ku helaan. Dowladdan Umawiyiintu waxaa la soo gaadhay xilligoodii adkaa. Waxaa tiro beel noqday dadkii kasoo horjeeday xukunkooda. Waxa ugu weyn ee lagaga soo horjeeday waxay ahayd in lagu eedeeyey inay dadka muslimiinta ah kala sarraysiinayso oo qaab cunsurnimo ah ay ula dhaqanto. Waxaa lagu eedeeyey in qofka Carabka ah ay ka sarraysiinayeen dadkii kale ee muslimiinta ahaa. Taas micnaheedu waa in dadka wixii aan muslim ahayn ama Beershiyaan ha ahaadaan ama dadkii Afrika deganaa ee barbarkii iyo dadkii midoobaa ha ahaadaan ama dadkii waqooyiga Afrika joogay, dadkaasi waa second class citizens. Dadka koowaad ee xuquuqda koowaad lehna waa dadka Carabta ah. Qofka Carabka ah ayaa xuquuqda ugu badan helayay, halka qofka kale cashuur badan laga qaadiyey ganacsigiisa. Boosaska waaweyn ee dowladdana aan loo dhiibayn dadka aan Carabta ahayn. Dadkii waqooyiga Afrika iyo qabiiladii barbarka ayaa ka mid ahaa dadyowgii cunsurnimadaasi ka dagaalamay. Qofka Carabka ah ayaa xuquuqda ugu badan helayay, halka qofka kale cashuur badan laga qaadiyey ganacsigiisa. Boosaska waaweyn ee dowladdana aan loo dhiibayn dadka aan Carabta ahayn. Dadkii waqooyiga Afrika ee qabiiladii barbarka ayaa ka mid ahaa dadyowgii ugu horreeyey ee cunsurnimadaasi ka kacay dagaalna ku oogay. Sidoo kale dadyowgii muslimiinta ahaa ee deganaa dhulalka maanta la yidhaahdo Iiraan iyo Afghanistan iyo sidoo kale bartamaha Aasiya ayaa ka hor yimi dowladda Umawiyiinta iyagoo iyaguna ku eedeeyay cunsurnimo iyo Islaamka oo la kala sarraysiiyey. Sidaasina waxaa jaaniska kaga faa'iidaystay dowladdii Cabbaasiyiinta. Bartamihii qarnigii 8aad 750 markay taariikhdu miilaadiga ku beegnayd, taariikhda Islaamka ee hijrigana ay ahayd 132, waxaa awooddii xukunka lumiyey oo laga adkaaday dowladdii Umawiyiinta. 89 sano oo ay shaqaynaysay dowladdii Umawiyiintu waxaa xigay in ganafka lagu dhuftay xukunkii Islaamkana waxaa kala wareegay dowladdii Cabbaasiyiinta oo ahayd dowlad hayb ahaan ka soo jeeda qoyska reer Banu Haashim oo ahaa qoyskii Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Haddii aad ilaa halkan la soo gaadhay,
ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kale channelkeena aad subscribe garayso. nabadgelyo.